السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta ay bisha July tahay 17 wararka diblomaasiyadda caalamiga ee dowladeedu ku hayna waxa kamid ah Muuse Biixi oo midowga Yurub gaarsiiyay ashkata ka dhanaha dowladda Soomaaliya. Suurtagal ma noqon kartaa inay Masar ku qaado dagaal xagga militariga dowladda Itoobiya. Maamulka madaxweyne Trump ee hogaaminta xanuunka COVID-19 ayaa ka sii daraya. Muxuu Erdogan uga baahan yahay joogitaanka Ruushka ee Liibiya? wararkaad halkaasi kala socotaan waa Bilkhayr TV. awarkeena ku bilowna xagga iyo bariga Afrika. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, xisbiyada qaranka iyo ergeyga midowga Yurub ee u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya ayaa maanta ka wada hadlay dib u dhaca ku yimid wada hadaladii guddiga farsamo ee Somaliland iyo Soomaaliya ka furmi lahaa dalka Djibouti. madaxweynaha Somaliland iyo xisbiyada qaranka iyo ergeyga midowga Yurub uu sheegay in ay guddigu wada hadalada uga qayb galaya Somaliland ay diyaar yihiin, balse dib u dhac jira uu ku yimid dhinaca dowladda Soomaaliya maadaama ay laba jeer la yimaadeen cudurdaar baajiyay wada hadaladii guddiyada farsamo. musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee UCID Professor Ahmed Cabdi Muuse Ebyen oo saxaafadda la hadlay ayaa faafiyay waxyaabaha ay madaxweynaha iyo xisbiyada ka wada hadleen ergeyga midowga Yurub ee Somaliland iyo Soomaaliya Nicholas Berlanga. Professor Cabdi Muuse Ebyen oo sharaxay qodobada ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo xisbiyada oo isku dhinaca iyo ergeyga midowga Yurub ayaa yiri waxaanu ka wada hadalnay shirkii Djibouti ee Somaliland iyo Soomaaliya oo guddiyada saddexda ah aad moodo inuu laba jeer dib u dhacay. arrintan waxaanu u sheegnay inay xagga Soomaaliya ka socoto, laakiin xagga Somaliland ay guddiyadu diyaar u yihiin inay tagaan Djibouti. Ebyen oo la weydiiyay inay jiraan warar sheegaya in Somaliland lafteeda ay wada hadalada ka cagajiidayso ayaa ku jawaabay in aanay arrintaasi jirin, isla markaana uu madaxweynuhu ku wargeliyay ergeyga midowga Yurub diyaar in ay yihiin. arrinta wada hadalada cagajiidka kama jirto buu yiri taasi Somaliland, waayo madaxweynuhu maanta wuu cadeeyay safiirka midowga Yurub inay dhankeena wax walba diyaar ka yihiin. horena waxa uu cadeeyay ayuu yiri waxa uu intaas sii raaciyay in Soomaaliya ay hore laba jeer u soo jeedisay cudurdaar keenay in dib ay u dhacaan wada hadaladii guddiyada farsamo ee Djibouti uga furmi lahaa. annaguna maanaan odhan xaggayga Soomaaliya ayuu ku baaqday, laakiin xaggayga waxba kamay baaqan. waa xaqiiqda jirta inay iyagu laba jeer cudurdaar ay keeneen oo ay halkii lagu qabanayay shirka ay yiraahdeen ma tagayno ama iminka diyaar uma nihiin. beesha caalamka ayay u soo sheegeen inay diyaar u yihiin, marka iyaga ayaa loo xaniban yahay. imikana dhanka iyo Itoobiya uma muuqato in kaliya la isku haysto biyaha wabiga Niil, laakiin wararka laga soo sheegayo madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Sisi waxa uu u ordaya ama uu muuqda mid uu u halgamaya dhowridda sumcadiisa ayaa lagu qoray wargeyska The Independent. inta badan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka ayaa waxay ka qorayaan sida ay macquul u noqon karto in dagaal military uu dhex maro dalalka Masar iyo Itoobiya oo isku khilaafsan biyo xireenka laga dhisayo dalkan faqiirka ee ku yaala geeska Afrika. waxa arrimahaas ka mid ahaa kuwa ka soo baxay Britain oo falanqeeya qaar ka mid ah arrimaha walaaca leh ee hadda taagan. muddada ay qaadanayso buuxinta iyo biyo xireenka Itoobiya waa xaaladda ugu weyn ee laga heshiin waayay. wararka ayaa waxay sheegayaan in Itoobiya ay bilowday tallaabadaasi, balse arrintu ay u furan tahay Masar oo imika arrintu aybay sii murgayso. markii aan bishii Maarch ka digay dagaal u dhaxeeyay Masar iyo Itoobiya oo ka dhashay in laga heshiin waayo wabiga Niil, waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya igu eedeysay dabhuriye iyo mid aan saxda sheegin, ayuu yiri wariye ka tirsan warbaahinta The Independent ee laga leeyahay Britain oo wax ka qora arrimahaasi. Ahmed Abdul ayaa intaa ku daray in maanta ay heerka wada hadalada Itoobiya iyo Masar ay marayaan dhamaadka diblomaasiyadda, waxayna u muuqdaa in uu dagaal u yahay midda kaliya ee suurtagal ah iyada oo wali caalamku uu
uu tafaxaytay inuu isu keeno labada dhinac. Isniintii wadahadallo uu hogaaminayay Midowga Afrika oo ay ka qayb galeen Masar, Suudaan, Itoobiya ayaa mar kale gaaray meel xun oo la isku mari waayay. Masar waxay ku baaqaysaa in ay saamiga qaybsiga si fiican ay u maarayso ama ay ka hesho saami fiican waa haddii sida fiican loo qaybiyo. taas beddelkeeda waxay dowladda Masar ay ku andacoonaysaa ama ay sheegaysaa in haddii dowladda Itoobiya ay bilowdo buuxinta webiga ama biyo xireenka qiyaastiisu ay dhan tahay 74 bilyan oo mitir cubic iyada oo aan heshiis rasmi ah laga gaadhin. dowladda Masar ayaa dalbatay in arrintaasi si degdeg ah wax looga qabto ama loo xaqiijiyo. Suudaan iyo Masar waxay nolol ahaan ku tiirsan yihiin biyaha webiga Niil, waxayna ka baqayaan in buuxinta biyo xireenka Itoobiya uu si weyn uga yareyn doono biyaha ay ka helaan webiga. Itoobiyana waxa ay u aragtaa arrinta ay muhiim u tahay soo saaridda korontada raqiisa oo biyaha laga dhaliyo iyo kobcinta dhaqaalaheeda. haddii Itoobiya ay buuxin weydo biyo xireenka, macnaha waxa uu noqonayaa in Itoobiya ay aqbashay baabiinta webiga ama biyo xireenka, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo baarlamaanka dalkiisa la hadlay horaantii bishan. dalalka Itoobiya Masar waxay haystaan ciidamo badan oo awood leh. si kastaba ha ahaatee, Masar waxaa lagu qiimeeyaa in ay ka mid tahay 9 waddan ee ugu awood roon xagga militariga ama ciidanka. labada dal, Masar iyo Itoobiya, waxay isku arkaan kuwo u dhow dowladda Mareykanka iyo dalalka NATO, ayna ka heli karaan taageero haddii ay u baahdaan. shabakadda lagu magacaabo The Global Firepower oo inta badan ka qorta awoodaha militariga ee dalalka caalamka ayaa warbixin ay soo saartay sanadkan 2020 ku sheegtay in militariga Masar uu yahay ka ku jira kaalinta 8aad ama 9aad ee ugu awooda badan ciidamada adduunka ee militariga. shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxa uu wargeysku Global Firepower ku qiyaasay in ay yihiin 50 milyan ilaa 45 milyan oo qof, halka kuwa kale ee hore ee ka howlgari kara ay yihiin 36 milyan oo qof. ciidanka militariga ee dhulka ee u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ay tiradoodu ay gaarayso ilaa 1000 askari, halka ciidamada hadda ka howlgala ay tiradoodu gaarayso 450,000 ilaa 500,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayd ah oo gaaraya 500 ilaa 480,000 kuwaas oo haddii loo baahdo dagaalami kara saacad walba. dhanka kale, ciidamada badda ee Masar waxa ay shabakadda Global Firepower ay ku sheegtay in ay agabka ay haystaan guud ahaan uu gaarayo 316 iyo wixii ka badan. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo kuwa qaada diyaaradaha, kuwaas oo ay adag tahay in laga helo dalal kale oo Afrikaana amaba Eeshiyaana. Itoobiya oo ka mid ah dalalka geeska Afrika ugu awooda badan ayaa tirada dadka ku nool waddankaas waxa uu gaarayaa 108 milyan. dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa lagu qiyaasayaa 41 milyan oo qof, halka kuwa dagaalka geli kara ee haatan u diiwaan gashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ay gaarayaan inta u dhaxaysa 120,000 ilaa 162,000 oo askari. militariga dalka Itoobiya ayaa GFB uu ku soo wariyay inuu haysto 400 oo taangi kuwa dagaalka ah iyo 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 76 gantaalada dhulka lagu rakibo iyo artilleriga. guntii iyo gabagabadii uma muuqato, ayuu yiri khabiirkaasi, in la isbarbar dhigo labadaasi waddan marka loo eegayo xagga awoodda militariga iyo dhanka dhaqaalahaba. daawadayaal iyo dhageystayaal, wali waxay dhex mushaaxaynaa wararkeena caalamka. Mareykanka ayaa kaliya diiwaan geliyay in ka badan 77,000 oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19, kuwaasoo ahaa kuwii ugu badnaa abid ee laga diiwaan geliyo dalka Mareykanka maalin kaliya. Donald Trump wuxuu doonayaa inuu ka hadlo dib u habeynta uu ku sameynayo qaybta caafimaadka ama horumarinta lagula tacaalayo xanuunka COVID-19, balse taasu dad badan ayaa ku dhaliilaya inaanay hayn arrin uu wax ka qabtay. diidmada Trump
ee ah inuu adeegsado awoodiisa buuxda ee xafiiska iyo dowladda si uu uga hortago ama uu u wajaho khatarta ugu weyn ee ka taagan waddankiisa. tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxa uu muuqdaa mid bilaa taxadira iyo siyaasad ahaanba iskii ugu adkaysanayo maalintiisa kasii dambaysa inaanu xanuunkaas sii badanaya ee faafaya aanu madaxweynuhu siinayn wax kalsooni ah uu wax kaga qabto. arrinta kale ee xusida mudani waxa weeye in uu Trump diiday inuu u dhaqmo qaab ku habboon baaxadda xaaladda degdega ah, laakiin waxa uu adeegsanayaa hab aan fiicnayn marka loo eego inuu hogaaminayo ololaha aqalka cad si uu u ixtiraamo shaqada cimriga dheer ee Dr. Anthony. waa arrin cusub ee dagaalkiisa cilmiga iyo runta in la waafajiyo dadaallada saraakiisha maxalliga ah ee lagu qancinayo dadka in ay xirtaan maskarada si loo yareeyo fiditaanka cudurka ba'an ee aafeeyay ee COVID-19. faragelinta Trump waa mid caan ah tan iyo intii markii uu ku faraxsanaa in uu adeegsado awoodda madaxweynaha oo inta badan hab dastuuri ah ka hormarinaya isaga oo raacaya dano shakhsiyeed ama siyaasadeed oo isaga u gaara. tusaale haddaynu soo qaadano arrintii ku khasbaysay Ukraine inay faragelin ku samayso doorashada iyo gelitaanka ayaa ahayd arrin aan habboonayn marka arrintan loo eego. isla sidoo kale xoghayaha aqalka cad Kelly McEnany ayaa yiri Khamiistii maanta, taasoo ku kalifaysa midnimada guud iyo isbarbar socda maamul ee loo manaynayo mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu weynaa ee dowladnimo ee hadda ka jirta madaxweynaha Donald Trump. xukuumaddiisa run ahaantii waxay u muuqataa maamulka madaxweyne Trump inuu ku fashilmay inay dowladda wax ka qabato hanaanka wanaagsan ee lagu maareyn lahaa xanuunka coronavirus ee sida ba'an wuxuu aafeeyay ee dunida ku habsaday, ayuu ku soo afmeeray hadalkiisii. imikana Liibiya, Ankara waxay taageertay dowladda xisaabinta qaranka oo uu hogaaminayo Faysal al-Siraj oo maamusha galbeedka Liibiya. Qaahirana waxa ay taageertaa golaha wakiilada kaasoo dhinaca gacanta ku haya bariga waddanka oo taageeraya ciidanka qaranka Liibiya. Khalifa Haftar xariiqda sirta ee Al-Jufra waxa ay noqotay dhanka kale xuduudda qaybteeda bari iyo galbeedka. dhanka kale xariiqda casaanka oo awood u leh inay sababi karto isku dhac militari oo dhex mara Turkiga iyo Masar iyo Jarmalka oo ah abaabulka shirkii Berlin. wuxuu ku adkaysanayaa sidaa daraaddeed inay axdiga sirta Al-Jufra uu noqdo aaga dumin kara, ayaa lagu yiri warbixinta. waxa iska cad inay tani macnaheedu yahay aqbalitaanka qaybta saami qaybsiga ee Liibiya. Ankara waxay isku dayaysaa inay ku guulaysato Washington dhinaceeda maadaama ay ka soo horjeedaan kooxo badan oo ay ka tirsan yihiin wadamo ka soo horjeeda ee Liibiya. sidaa daraaddeed wuxuuna sheegayaa in joogitaanka Moscow ee Liibiya ay khatar ku tahay danaha Mareykanka iyo NATO. iyo xaqiiqda ah in wakiilo ka socda xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee Turkiga ay in muddo ay cadeeyeen in xiriirka ay la leeyihiin Ruushka uusan ku dhisnayn istaraatiijiyad, laakiin uu yahay mid diyaaradaha Ruushku ay ku sameynayaan taatiko. halkaad warkaasi kala socotaan waa Bilkhayr TV.